أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. nabigeennii udgoona calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saddex nicmadood qofka waagu uula bariyo nicmadii adduunyada taallay oo dhan qofkaasi waxba lagama reebin. ta koowaad waxa uu nebigu ka hadlay nabadgelyada. wuxuu yihi qofka waa bariistay isaga iyo reerkiisii iyo dariskiisii iyo dadkii uu ku dhex noolaa oo nabad qaba. mucaafa fii jasadihi oo jidhkiisuna uu u badqabo caafimaad qabo oo meelna ayna xanuuneyn. cindahu quuta yowmihi yoomka keliya wuxuu quutanayana haystaa waa waxaad maanta cunto eed caawana ku cashayn kartaa quutalyoom la yidhaahdaa. saddexdaa nicmadood buu nebigu yihi sal alla alay wasalam qofka la waabariistay nicmadii adduunyada taallay oo dhan qofkaasi ilaahay uu siiyey. amniga ayaa la hormariyay nabadgelyada. waa taa dadku masaajidda ay ku tegayaan ee ay ku kalahayaan ay wax ku baranayaan ay ku cibaadeysanayaan. ibraahim calayhi salaam markuu beytka ilaahay uu asaasayeyna ee kacbada uu asaaskayga dhigayay waxa uu ducooyinkuu ku ducaystay ducada ugu horeysa waxay ahayd in ilaahay beledka uu ka dhigo uu joogo beled aamina. rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniyi an nacbud alasnaam. ilaahu beledka aan joogo waxaad ka dhigtaa wili beled aamin oo nabad qaba aniga dhashaydana ilaahow inaan asnaamta caabudno ilaahu naga dheeray oo naga ilaali buu yihi. waa gaalnimada. bishu markay belata nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma arzuqna alamna waaliimaan waasalaamata waalislaam rabbii warabuka allah ilaala rushdin wa khayr. ilaahu bishaa belatay buu nabigu odhan jiray waxaad nooga yeeshaa bil noogu belata maaratane nabadqab iyo iimaan nabadgelyo iyo islaamnimo. rabbii warabuka allah saasuu nabigu odhan jiray. bishaa belatayay rabbigay iyo rabbigaa waa allah weeyaan. alla unbayna wada abuurayna uuma. marka saddexdaasi waa saddexda nicmadood ee bacda alislaam marka la eego ugu waaweyn. islaamnimada ayaa ugu weyn, nabadgelyada ayaa ku xigta, caafimaadka ayaa kusii xiga, quutalyoom qofka la siiyeyna uu kusii xigaa. quutalyoomku waa waxa maalinkaa uun la quuto ee beritoole aan gaadhsiisanayn. marka nicamta ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan waagii baryaba aan ilaahay ugu mahadino weeyaan. oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryo wuxuu akhrisan jiray asbaxnaa calaa fitrati alislaam wa calaa kalimati alikhlaas wa calaa diini nabiyina muxamadi sala allahu calayhi wasalam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا
وبك نموت وإليك النشور. عائشة رضي الله عنها وحيتري كان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه نلشي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بحسوسنا يحس جري مر والله دواب برينا دعاء وآخر سجري إلهو أنك أدقى كوا بريسني أدم كوا بريسني ويان ونبض أدقى نسيي واقع نو بريي فضل أبو نو بريي هذا قلب سننا إلهو هذا قلب أنت نو كانوا نو قلبي هذا نوراننا نلش أدقى أيام نو دقي هذا ديمنا ديمشاد أدقى نو قدري كحقا أنسو بحدوننا وأدقى أبو نبي ونجري وردد مركو كسوك عنا الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكري. إلهي من كم هذا أبو النبي ورجري روح دي انتو إيقا قاد حالته ولا إيسو علي إنا نساق عن حسنا ما ركتانا إدمي وإفصحي يذكر الله نلش النبي محمد ودن عليه الصلاة والسلام ذكري بيهي أدو جيفانا اسمك اللهم أموت وأحيا إلهو مقع عاسا كل من يا واي هرددو ودي مشير ويان وقفوا هبيك اللح ساعة أما شن ساعة مال النفتيس أجرت كما ورقبه حديث وكيل يقول لها النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون لما الشدى يهرددو بنبي يقول ولا لو ويان أهل الجنة جنة حديث أي قلانا مسيحنا يا أبو رسول كبير وأدونك دوشة ما حنو سيحنا إنه هردد وحنو هيسنا الراحة إنه تهي هردد الراحة معها والنص الشوى يانو تعبك قفك مالك يسوق علي أي إلهي وقلت لك لها بينك مركو جيفتو إن تعبك الله قادو الله قبيه لكن أهل الجنة جنة هدي أي قلان ما بتبع أيام بهبا يراتي وحكول ولينا أركب مايان وحكم مرقسينا أركب مايان وحدال يتعبوا كأننا الله كل من مايان لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بإلهي. أهل الجنة جنة الدحديدة واحتعبوا هبا يراتي أصيب يوسو قال يا بجرتو وما هم منها بمخرجين جنة أي قالنا كوا كبح يا ماها بركا هردد أي دمشد علاقة كذا حيسا وقفوا حالي 6 ساعات أما 6 ساعات وجيفي نفس الدعوة ميل جرت كما ورقبتين ملك السنة ويكو ضلو شيء كيكو إلى لنا يوا إلهي جل وعلا ملايك بقفك بن آدم الله صدر يا أو هبينك حشرات كدول كامر مرة يونا كا إلى لنا يا سنكو وكو ضلولا أفكو وكو ضلولا إيش ويكو ضلوشا دكتو ويكو ضلوشا وحاصل إلهي بن آدم إلى لنا يا بركة واقو مركو بري النبي وحو كدو عيسان جري الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره إلها وحن كم هذه يا روح دي أنيق يقصوا علي حسكي سيد طاعات سنة إن عبادة استهلاها إيه إدمي أيام محلب النبي قلنا ورنجل عليه الصلاة والسلام بركة نلوش النبي محمد أردن وحيها ذكري به ذكري معها تصبح لقاته ونملا لفريست معها كاسوا جزء من الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وجزء من الذكر ساجد بوصوق لي النبي قلنا اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك مساجدك كبحاي اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك سوق مراي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وسوق مركو مريو ذكري قالنك أخرسته نبي قولي وحال قرأ 1000 حسنة وحال قد عفانا 1000 سيئة 1000 حسنة انت يتعي ما تقعنا 1,000,000 أو حسنة لغو قرية 1,000,000 أو قف أو دنب كاد عين ولا دافيا تدو سيحنا يا بسمك اللهم أموت وأحيا ريركي سابيك مركو بركين يو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام نجا هبينك حاسك سمركو لقى الماما يدعاء أخرسته النبي يري هذه هبينك إلهي عروش حاسك سادي إلهي الماء قدره الماء سوح ودشاب النبي يقول سوى الشيطان وسنتابا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان إله الله وضع يد الروح شيطانك إله نقدره وجنب الشيطان ما رزقتنا
وحي ما أنت أولادي أبدا نوقع درتين نقو أرزاقنا إله الشيطان كان نوقع إلالي ونوقع ديره شوف الذكر هيك عندي صعدك سفرك ركوب الدابة دابة باتفو ليس بسم الله سبحانك إني ظلمت نفسي ظلما فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي دابة دي سمركو فول يبو أذكارتا أخرستي لأن السماء أيو إيغو أودو لعديي نيكي لا سعودي باكول يا أمير المؤمنين بالموشيك وحولي صدا أن هرتي نكو سمين يو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي أنا هرتي نكو سمين مركو دابة دي سفول يبو نبيكو أذكارتا أخرستي سبحانك إني ظلمت نفسي ظلما فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مركاسو نبيكو سمد إيغو أودو لعديي لأن مركاسو إلهي ملائكتي سكوي دادا إيغا أدون كيغي وحو قرتي إنو ربك لو سلحين ربك يسو أنيغا عنهي وكد مدافي ويدي سنة يا ملائكتي دي مرق وحاد كان نغطان إن أنا أدون كيغا دنبك يسو دافي با إلهي دادا قادي غاقا أدو أدسكا وداتات فوليسا أذكارتا يربا لقوليها بالحصوصو بل أذكارتا أون حصوصو لأن أذكارتا مرقا حصوصتو إلهي بكو قد مدافعي ابن عباس الله الرالك نغضي سقي أبيه به وحول قفك الدابة راعة دابة مركو فولنا يدادا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ابن عباس وحول نيك الدابة مركو فولا آيات دا أخرستا حدي دابة داسي إلهي ما بقدر الشل أي لقى شيء لبعضه صادقا أو كان كاذبا وحن أنقو أنهبا ومبلن كقاضي يابو يري إن أدون كاسي وحدي باتا أين سوق عليه أتكار غفلت دو قفك مومك الله ما أقوله وبتكيب النبي وأتكار براي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة مركو النبي ولا عنتيني صحني مرنا حقا وكقاته عنتنا مرنا حقا وكقاته مرنا حقا وكقاته يركي يرى بركاب النبي كوري يا لو يرويل كي يرو سم الله بقول عنتنا بسك أوقب كوري وكل بيمينك كعنت هذا بدنا كعن وكل مما يليك بنا عبد سوحك تنكعن سجى النبي يقول عنتيناي إنك لكن ما أنت وحاضر كيسا أبوه نقولي والله عنتدي سلوسيا عروتنا بدل بأوعنا قبلهنا بدل بأوعنا عنتدا كلي الله عنا يا تربية دي ماشى ما نعيش تربية الله ربا أبد كين الله الله تربية ديو ده إسلامنا يا ناس ومالكم علا هذا أبا هم كسي ولا ديك كسي كبوا بينو كبوا بيني تربية صح ما هتاس يا غلام سمي الله والنبي يقول بس كأوقب قعدت هذا مدقنا كعن لنا عاكو صوحك تنا كعن وحديث إلى قيامها حديث قال الله عمل فريا بالكوربة حقكو صوحك تكعن عائشة رضي الله عنها وحيت لي حاد مركا النبي قالوا كانوا الصحابة يسلعوا تينا يوم ماشي النبي محمد عنده وكعن وانقرنجر يا صحابة كتير وانقرنجر ماشي النبي وكعن تينا الصحابي هو يمدور عنده مركا عنده واكلة تتقنا وحيد عنده النم وعنده ما درجينه لعلكم تفترقون بان النبي يقول ما لها مركا عنده عنيسان أيان نبقوني قولي أعنا ها بيدادنا أصحابته مركا النبي يقول ما يكدا كلي قاد عنيسان ما لسكو كان عنتدينا لأن بسنك أوقبت أبو النبي يقول إلهي ما مركا إني بركيني إسلامكو آداب ويان نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم عبد الله بن مبارك ورحمة الله عليها يا أنجري نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم وقوم بدن أون مقل وحن وقباه بدن نهي أدب يرونكو عمل فلان وقباه بدن نهي دينتنا وآداب طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون وحول مركب دمنا وحول رجل إمام كاسي أدبتي وناكسنيد بان رادنون دون قورما رقي أدبت لها يا أمد التربية دينية مركي هورتين نقد انتين وأصحاب النبي قالوا وجدا مركي نقد انتين رقي أدبت لها ونبي أدبيي رب النبي محمد وحبروا التربية دي مركي هورتين نقد ما هذين نقد انتين
ayaa ku baraarugnay buu yidhi deedna markaasaan doondoonno hortayo dhammaadeen buu yidhi camalfal buu ahaa diintu zamankoogi inay diinta ku dhaqmaan ay ku camalfalaan dikriga ilaahay ay badiyaan dikr yadkuruuna allah markaasay xagga aakhirada u tartamayeen saxaabada fuqaradii muhaajiriinta ayaa nabiga u yimaadeen sal alla alay wasalam yaa rasuul allah aqniyadii muslimiinta bay yidhahdeen aqniyadii muslimiinta way naga badiyeen jannadii iyakaa naga qaatay darajaadkeygii dahaba ahla duhuuri bidarajaati alculaa wاlnaciim almuqiim darajaadkii koreeyey iyo naciimkii muqiimkii joogtada ahaa iyo daa'imka ahaa ila nicmadda adduunyadu joogto maaha nicmadda adduunyadu joogto maaha way dhammaataa laakiin nicmadda aakhiradu waa joogto kaa dhammaani mayso dhallinyarnimada adduunyadu way dhammaataa laakiin dhallinyarnimada aakhiradu kaa dhammaani mayso jannada adduunyadu way dhammaataa haddaad janno samaysata adduunka dusheeda way dhammaan adaa ka dhiman ama iyadaa kaa baabi'i laakiin jannada aakhira ma dhammaanayso nolosha adduunyada dhimashaa ka dambaysa nolosha aakhirana nolol abadiyo waaritaan abadiya ka dambeeya caafimaadka adduunyada xanuun baa gadaal socda laakiin caafimaadka jannada muminka lagu siiyo weligii xanuun ka dambayni maayo dhallinyarnimada aakhira ma gaboobaysa iyadu saxaabadu markaa waxay idhahdeen nimankii walaalaha iyo aqniyadii maalqabeennadii jannadii darajaadkayga ayakaa inooga badiyo naga helo inagu horeeyey muqiimkiina ayakaa qaata nicmadii daa'imka ahayd markaa buu nabigu ku yidhi sidee layniga badiyey balii sheega waxay idhahdeen xagga salaada waan ka simannahay xagga soonkana waan ka simannahay laakiin waxay nagu dhaafeen nabi allow maadaama dhaqaalihi lacag ay leeyihiin xajkii bay tegayaan anagu ma tegi karayno sadaqadii bay la baxayaan sadaqad la bixi kari mayno zakadii bay bixinayaan zake ma bixin karayno cidqu raqaba addoommaha intay soo gataan ay soo iibiyaan ayay odhanaya ilaahay dartii baan kuu xoreeyey magaalada galoo iska xoogso intaasoo dhan bay nagu dhaafeen bay yidhahdeen nabi allow seen u gaadhna anagu markaa faqiirkoogu iyaka ka haniga wuxuu kula tartamayay aakhiro inuu kaa horeyn faqiirkeenna zamankana ka haniga intuu sidaa u eega buu leeyahay waxa uu haysta adiguna maad haysatida isku aragti ma nihin markaas ama faqiirkeenna zamankan waxa uu ku dadaalayaa xoolaha adu aad haysato inuu kaa qaado suu kaaga qaadaba faqiirka zamankoogu haniga xilligaa jooga wuxuu kula tartamayey sidee maaragtaani aakhira ragan aan u gaadhna aakhira inooga badiyeen faqriga adduunka isaga ku haysa waxba ma arkaayo laakiin wuxuu ka fikirayaa ninkan faqiirku fii zamani nabiy muslimka haniga sidee buu aakhirada kaaga darajad sareeyaa sideed markaa u gaadhay low kaa darajo sareynayaa oo zakadii buu dheer yahay oo sadaqadii buu dheer yahay oo cidqu raqaba addoommaha la xoreynayey buu dheer yahay oo jihaadkii buu dheer yahay oo xajkii buu dheer yahay oo cimradii buu dheer yahay oo ixsaan kaloo badan buu ninka qanigu samayn karaa masaajid buu dhisayaa madaaris buu furayaa macalimiinta qur-aanku bishaar siinayaa sadaqad buu la baxayaa aytaamtuu wax siinayaa ilaa ninka muxsinka ilaahay dhaqaalihiisa uu meel fiican u mariyey sida darajadiisa lagu gaari maayo nicma almaalu saalixi lirajuli saalix markaa buu nabigu ku yidhi raggii fuqaradii muhaajiriintii wuxuu yihi camal baan idiin sheegi kuwa inaga horeeyana aada ku gaadhaan kuwa inaga dambeeyana aada kaga badisaan axad niga fadli badanna aakhire inuusan jirin inuu yimaado ilaa mid sameeya sidaa aada samaysaan ama ka dheereeyo niga dheereeyo mooyaane waayahe noo sheeg nebi allow salaada markaad ka baxdaan buu nebigu yidhi subxaana allah 3 jeer baad odhanaysaa alxamdu lilah 3 jeer baad odhanaysaa allahu akbar 3 jeer baad odhanaysaa intiibay markaa intay maqleen bay la noqdeen walaakiin zamankii nabigeena sal alla alay wasalam cilmiga caloosha laguma haysanaynin cilmiga maskaxda laguma haysanaynin cilmiga waa lagu camal fali jiray camal falka cilmiga lagu yeelayn jiray kadibna cilmiga ummadda la gaarsiin jiray oo saxaabada waxaa lagu tarbiyadeeyey balligh maa unzila ilayka min rabbika aladiina yubaliguuna risaalaati illaahi nebi maxamed baa shaqadiisu ay tahay inuu risaalada ilaahay uu dadka gaarsiiyo ummadda nebi maxamedna waxaa lagu ammaanay taamuruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar dadka ayaad wanaagga faraysaan xumahana aad ka reebaysaan saxaabada waxaa lagu tarbiyadeeyey waxay nebi maxamed ay ka maqlaan inay markaaba iyakuna ummadda ay usii sheegaan oo waxay ku shaqaynayaan balliquu canii walow aaya
aayadna ha noqotee kii maqlo ummadda kale sii gaarsiiye deedna xadiidkii baa gaadhay raggii kale markaa bay fuqaradii muhaajiriintu ayagoo aada u murugoonaya ayay soo noqdeen yaa rasuul allah xadiidkii aad noo sheegtay way maqleen adkaartii way nala sameeyeen laakiin waxayna dheer yihiin weli xaggii dhaqaalahayna dheer yihiin markaa buu nabigu yihi dalika fadlu llahi yuutiihi man yashaa dalika fadlu llahi qofka haddii ilaahay uu dhaqaalo uu siiyey oo uu dhaqaalihiisii meel wanaagsan uu ku bixinayo waa nicmad waa fadli dheeraad oo ilaahay ku doon u siiyaa buu nabigu ku yidhi waa meesha culammadu ay yidhaahdaan ma faqiirka muminka faqiirka ayaa fadli badan mise haniga shaakirka ayaa fadli badan muminka faqiirka ee saabirka ayaa fadli badan mise haniga shaakirka ayaa fadli badan culamada qaar waxay yidhaahdaan muminka faqiirka fadli badan bay yidhahdaan markaasaa qoladii kale waxay yidhahdeen siduu ku fadli batay bal sheega xadiista nabiga soo daliiliyeen yadkhulu lfuqaraau ljannata qabla alagniyaai b500 caam fuqarada muuminiintu akniyada muuminiinta jannada waxay uga sii hormarayaan buu nabigu yidhi oy uga horeynayaan 500 oo sanadood bay kasii horeynayaan buu rasuulku yidhi 500 oo sanadood ayuu muuminka faqiirku jannada kusii hormari doonaa kadibna hanigii shaakirkii waa la xisaabi isaga oo waa la xisaabi adduunyada xalaasheeduna waa xisaab xaaraanteeduna waa ciqaaba ogaada caliy bn abi aalib radia allahu canhu ayaa la weydiiyo lagu yidhi sif lana addunya cali adduunyada noo sifee markaasuu ku yihi maa asifuhaa oo adduunka maxaan iigu sifeeyaa bal ii sheega maxaan ku sheegaa maxaa ku tilmaamaa u aamusa cali nin fikir badan buu ahaa murug badan wuxuu yihi awaluhaa canaa horta adduunkaa nii sheegi buu yihi dhegeysta awalkeegu waa tacab buu yihi waa daal nin raaxaysanaya adduunka ma jiro maanta faqiirkuna uu walwalayaa haniguna uu fikirayaa faqiirkuba la uu fikirayaa oo wuxuu ka fikirayaa halkee lacag iyo adduunyo ka heshaa haniga maalqabeenkuna uu walwalaya wuxuu la walwalayaa xoolahaaga bilow la dhac wadanka bilow dagaal ka dhac wadankan intaasoo aqalaad ka dhistay bilow dhibaata ka dhacday shaqaalahaagu bilow ku dhac xisaabtaadi ma saxbaa mise waa lagu dhacay waa ka xafiis walba kaameraad u dhigay dadkii ila waa waswaas buu qaadayaa marka adduunyada awalkeegu waa tacab aakhiruhaa fanaa aakhirkeeduna waa dhammaad xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashana waa lagu xisaabi aakhire ogu xaraamuhaa ciqaab ta xaaraan kugu soo gashana cuquuba yaa ku dul taalla waa lagu ciqaabi man istugniya fiiha iftutina buuhi ninka adduunka dhexdiisa ilaahay uu hanti siiyey ee ilaahay hani uu ka dhigay uu fidnoobay buuhi uu fidnoobay waman iftaqara fiiha xasan ninka adduunka dhexdeeda faqiir ku noqdana kaana murug baa dishay buu yidhi nina uu fidnoobi oo lacagtu waa fidnad salaaday kaa leexin cibaadaday kaa leexin khayrkii kaa leexin wanaagay kuu diidi masaajidka markaad timaadi markaad tukatidna inta qalbigaagu xisaab uu ku maqan yahay ayaa inta khushuuc iyo khuduucaad ku tukanaysa yamaa badan inta salaada markaan tukanayna faradka sheekhu hadda wuxuu nagu tujiyey suurat lmuzammil buu inoo gaabiyey salaat alfajr bay ahayd oo in la dheereeyaa fiican salaat alfajr leanna salaada fajrka qur-aan baa ilaahay ka cabiray wa qur'aan alfajr baa la yidhi laakiin waa imaamyaduna inakana ilaalinayaan haddana bal ka soo qaad waan ku tukanaba idaa jaa nasrullahi baa laynagu tujiyey waa suurad yaroo gaaban ma inta qalbigeenu xaadirka uu yahee imaamka aan gadaashiisa joogno qur-aanku u akrinaya aan tadaburayna ayaa badan mise intaan adduunyada ka fikirayna badan intuu qalbigeenu maqan yahay baa badan faqiirkiina uu murugsan yaho meel buu fadhiyaay wuxuu leeyahay adigu ilaahay baa ku nacay oo lacag ma haysatid kii qanigiina waxa uu ka fikirayaa waa lagu dhacayaa lacagta sidee u ilaalisaa ama lacagtaas shilinka sidee shilin kale ugu soo dartaa marka adduunyada xalaasheeduna waa xisaaba ogow oo ninka qaniga
banka qiyaama markuu joogaan waxaa la odhanayaa joog adigu had dadka ka had maxaa looga reebayaa xalaashii ilaahay uu soo geliyey xalaasha ahayd meeshuu ku bixiyey iyo niyaddii u baxiyey baa laga xisaabin baa la yidhi faqiirka laakiin jannaduu gala isagu ila waxba ma haysan isagu inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab kuwa adduunka dusheeda lagu ibtileeyo faqri baa lagu ibtileeyey xanuun baa lagu ibtileeyey colaad baa lagu ibtileeyey dhibaataa lagu ibtileeyey way sabreenoo way adkaysteen ilaahay waxa uu leeyahay kuwa ajarkooga mushqaayadooda balaa xisaab bay ku qaadan doonaan baa ilaahay yidhi marka qofkii muuminka faqiirkii jannadii buu galay ha gala jannada bay culimmada qaar leeyihiin waxay qolada haniga shaakirka fadli badan ay daliilsanayaan weligiiba jannada ha ka horgalo ha galo jannada marka laysla soo galo darajaadka jannada waxaa u sarayn doona ninka muuminka haniga shaakirka lanna miskiid buu dhisay faqiirku miskiid ma dhisin taajirku madrasad buu dhisay oo 200 oo arday xufaado quraan intuu ku soo xereeyay ayuu maaragtaan boarding intuu ka dhigay buu yidhi dhaqaalahoogan aniga bixinaya macallimiintiina bishaarkoogi meel buu saaray sanad kastana waxaa u soo baxaysa 50 qof oo xufaad alqur'aan ah ayaa quraankii la barayaayo u soo baxaysa معلمين بين نقونيان علماء نقونيان خطباء بين نقونيان فقهاء بين نقونيان قضاة بين نقونيان دعاة بين نقونيان وحاسو رميكي غني شاكرك صحيفة ديسا إلهي وقرية صحيفة ديسا وماشى ورجل عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه فضل بن عياد بكيري مثلك لولا مثلك وأمثالك ما اتجرت بورجلي يعني adiga iyo rag kula mid ah hadaynan adduunka jirin tijaaradiya ganacsiba kama shaqeeyeen buu yidhi waxaan ganacsiga uga shaqeynayaa adiga iyo imaam bukhaari iyo culamada xadiidka nabi maxamed weeleynaysa ee ummadda nabiga cilmiga dhaxalkii nabiga u reebaysa si aynan ugu mashquulin adduunyo ayaan anigu adduunyada inugu shaqeynaya ogaada buu yidhi masaariifta reerihiina aniga madaxa ii taallaya aniga igu halleeya inikuna ummadda diinta baro diinta ilaahay u shaqeeya buu ku yidhi haniga shaakirku waa kaas markii ninka imaam bukhaari raxmatullaahi calayhi nafaqaynayey ee masaariiftiisa iyo reerihiisa kaga hagaagay masaariiftooda weliba a'imatul islaam kulligood marka la eegay nin 4 xaas wax ka yar lamaba jirayn baa la yidhi intaasoo xaasa ragga lahaa ayuu cabdillaahi ibnu mubaarak odhan jiray reerihiina masaariiftooda aniga igu dhaafo igu daaya inaguna ummadda diinta u barto diinta u weelaya buu odhan jiray marka ninka imaam bukhaari nafaqaynaya masaariiftiisa dhiibayey ninka abaa hureyre wax siin jiray ninka fudayl bana cayaad reerkiisa masaariifta siin jiray iyo faqiirka muslimka gida rosford isku ajar maaha markaas isku mid ma noqonayaan marka haniga shaakirkaa bay culimmadu leeyihiin hadhow jannada markuu gale he isagaa fadli badan لذلك صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم خيرك أيه ترتميين هدونك وحي نبكو السوق على دباتو ما باركين فقرك وحبو ما أركين حنون كدع وحبو ما أركين داجة وحبو ما أركين وحلقان وحبو ما أركين حبا مساجد كن النبي صلى الله عليه وسلم حل مدينة المنورة آيتها دحن بركاب النبي كسر بحبورك عائشة لأنه وحو أركي مثل رجل ربيعة بن كعب الأسلمي وصحابي جليلة وأهل الصف كجر أهل الصف وحويان وأرد مسجد النبي محمد قداش يسدن بيدقيهين مقالة المدينة قرين يا قرابة كمله حتى أقل قلان مله ما لا يحكى عنان ملها نبينا عليه الصلاة والسلام هذ يد الله كان النبي يحكى سيجري هذا الصدقات لبح يعني وحجر يكسي صدقات داس فضالة إيو ربيعة إيو أبا هريرة إيو أهل الصف وين بدنايان تضباطنا والله كل شيء قال سجاشة بعلماء كل شيء قال قار لوا بقول بكل شيء قال قار أفر بقول بكل شيء قال مرة تردد وبيريسي وتضباطنا بسكت النبي كل حفظنا مرة النبي صلى الله عليه وسلم أرياف المدينة مقالة المدينة غيرها يتوليك ودو أي النبي قدر جروه رجل ذاتك القرآن كالصوبرة غيرها سوى إسلام يا الدين تبي جعل هذين أرض ونحفر اسمه فاتحة الصوبرة غيرها سوى لما إسلام لماذا قارسية والنبي دعوته ودر جريك
رجل مركا أهل الصفة هاي مقالة المدينة قراني قرابكم إلى حين نكال رجل ربيعة بن كعب الأسلمي والنبي محمد خادم كيساها هذا كي مركو النبي قوصوك صلاة الليل أي نبي بيها وكيجري بيها وكوسي سنة والنبي قوصو قاد جري عظم النبي قوصو قاد جري مركا أبو النبي قارك الربيعة ودحمونه يوصد عليه دحم على سنة أنت وقمت جرتو دفاع جركو يرانا يا مركا قفكم والمدة سدح مع الموت أنت مركو هو دفاع جركيس يرانا يا ضرب حتى كعلينا ما يقبله قوير بهايسنا يعني دمع ساس كوكو قبل جرين سداس وقر قرية مركب النبي كوكو ربيعة لبيك يا رسول الله وحاد دون تعاون ايش يا قبولي بل وحاد دون تشيب عاون وهذا الكعيال ما أهن وزير ما أهن مدحوينه ما أهن مع القبائل انتو كون بلن هذا بلن تكاغا بحيا ما وزير بلن انتو هذا بلن كاغا بحيا ما ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كل الربيع وحاد عاوة جعشها يشيغ ابو كير سلني وحاد دون تشيغ عاوة مركبوا صحابي غياب وفكري أسألك مرافقتك في الجنة بكل إن الجنة الرفيق كل نقض إلهي ويديب لي بس شخصيا كله وحاد دون تشيغو ومحمد عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم عليه السلام وحا إلهي أوصي الدعاء الله أقبله مستجابة حدو نبي عليه الصلاة والسلام إله بورتا الذهب كدق بورتا الذهب بين نغنيسا حدو نبي عن تبع عيد السوق هدو إله عيد ذهب يقدق إله الذهب كدق كرا لأن نبي محمد وعد سوى مستجابة ويان وإمام الأعظم ويان خلقك إلهي أبو ري ودعبك قيامة إيمانيا وكي شفاعتي سيهوس من دوننا دعادي صلى الله أقبل دونه كابا كل الربيعة وحاد دون تعاوي الشيء مركب ربيعة يلي أسألك مرافقتك في الجنة أقل وبهيه محسوسا رر وبهيه محسوسا بر وبهيه محسوسا عنت وبهيه محسوسا نرى في عنه كن ولا ضد دونا يا وحي ودا من اللوبي وايو فرصة بو قرت إني كسر نقولي هذا ما تدافت أو صار نقطه فرصة سعيدة فرصة طيبة العربت فرصة لا تضيع دي اللي قايل هذا ما أنت مدحونها وضنا كان ما أنت مقابلة يك علي حد يرسل لها بالشيء شيء عليك أكتر كوبو قيمة بدن يادو الشيء نساسوما بوس بعضو باهن تا مقالة السنتر كيغا ونيو ماتا كل ما أدا إيه له مدحويني بوس كاسا باهن هاي سي صحابي رضي الله عنه شخص الله الله يقدر كيسو قرنيا مكانة ديسو قرنيا وحا صحابي نوكلا عد ولبنا نولشنا الدنيا دي نولش آخر فرقك أودحيا أيو قرنيا جنة الدنيا دي جنة آخر فرقك أودحيا بو قرنيا دادا مركاسول أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله وحكا لمر بأنيقوية إذن أذيك جنة كودح أركو الرفيق لن نغضو إله إنت إيويدي مركاب النبي كويل أو غير ذلك تواهين وكرنا الشيء النبي كويل تأهرت هالشيء تكلا قدر سويان أو غير ذلك تاتوانا هنا هو ذاك بول مراد كلا أنوغو مليه مراد كيغو وابا انتا صدولي بس ذكبوها صحابي قاسي أذكياء إنكو ضد ما انت اسكا عقلقو قفور ربا لغون دولا نكر وانين عاقلو وانين خبير ويا وسياسي سياسي حيل ديرو أركتين ديرو كنتم كسنة سواسع وضا اسبدل كجيسك أفريقو كفر الله صلاة فجر قبته كذا ما يبته كذا ولا قولهم معك يا مرقى خبير نلش الدم بقى الرنت ما كو حساب تمام ما حوك يا خبير مرقى مدرسة حفظ القرآن انتو بسي لما بقولوا أرضي انتو كسو حريستي لما تنمع على انتو قدي بالميري أرضي دا حفاظ القرآن يا علماء يقصوا صارا بما إلى قيامها جروب وحنيقة هاي السعودية كاسا خبير أو خبير حيل ديرا هو كفى الله جيسك أفريقيا كقلا يسقى
أذكياء بين صحابة محمد أي هاي أذكياء عقل بدن أو عقل جوج سوجد بين هاي أذكياء مركب النبي كويل أو غير ذلك تاتوا أنا هين وكلا ما يقولي توكلا ما قبض عنه طاوم ما قبض بس تاسع الله مراد كي قوي تاسون إن الجنة كوارك بس والرفيق ولا نور فأعني على نفسك بكثرة السجود بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا السجود فرح بدل هذا ونقول عاون سجود هذين بدل سجوده نبي قال جميع بشاريه هكودك منه عبادته وطاعته دعمها كلا بنني سجود هذا ونصوبه النبي كويري وركي جنة الله بشاريه هدي النبي محمد وليه هاي سجود صوبت صو إنك أنا مركا إنك أنا حال كان محاضر ملايين سامركا سوينا الأوينما سوينا الله كعبس قصيب بدينما هوين كنا كل وين مقلا يعني إياك أنا قصد بانو قدريه هويني حبشية ومذوبين أو وحيل هاي الحنون كان ليلة صحدين واتقانا وقلل وحنون كوفق ودعو مير كيسونا ودبال متوغ مير كيسو هويني إذا سأل النبي قال نوتي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسرع جدتك أيها كل عابيت جدتك مرضنا مركز بيقبل لهنتا إلهي إي ويدي بكتر عافما إلهي عافما دي ويدي ما هن حنوكم مدح ورار ير حمد ير وصوحدن مير كدبا قفك دبول ما يوتغيا ما انكي سيبا بدل ما برغمنا يبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم وحكو يدي حداد دونتو خيار بو النبي قصيه خيار عجيبه وحنا حداد او ادكيساتو او صبرتid جنات هلي حداد دونتو ان الهي كو بريو عافمات كسينا حدا انو كو دعين مركب النبي عليه الصلاه والسلام كو سدا كو يري ايات يا رسول الله بل وان اسكو نقول يركادي وسو نقط مركب يا رسول الله حنونك اسكت دابيتر حنونك هلكيس هي جوجو اسكت دافي اسغا حنونك لكن مدون انيغا ييغا دعيه ميشان دون هان اسكا دحه يانا مرض ييغا بيله منو عوريده لا اركن بي كتري هوينكوغي رغوغي سو اسكو اركتي ما انك هوينكني رغين اسكو اركتي ما مانت وكلا دونا لأن أمتنا مال كليه بيها كودا عبين مشرب كليه بيها كودا عبين معلم كليه ودا تربية حنون كيسكت دابا كتر ماشي ساجوغو هسكت عدعو هذا جنة بكوه لا يصدق كلها في السجع لكن ماشي عندنا عن سكت دعاء يعني عورة إذا لا أركن النبي الله مرض يجيب بلحمن يدو مير كيجو دبل صومي ولا بقف قاسي حدو ومركان صلاة بقف قال نقول هاي بالليل ماركا وسوكع بقف قاسي إنه تكذا شريعة وعيد جيسا وحي مركا يدا جرك السوق على الدم بقبت يدو إنك أنا ما تقبله نقار كود أيكم مان كوجي عقل كوجي وصوجدو أو شقين أيو أيا الله يا أبا درح نتحلتين الرجع هرمرتين بنان كبرت أما أبيه ما درك ساعة إن أنت سكالر عليه درح نحلته سأقول المسجد كوكولته كان ضده صفقة هراء دش سينا بين عاي سعوداني هات كي مريان واربع ما هي بقى iyadoo miyirkeegii uu daboolmay oo suuxday oo jidka taallo marada ka beelahmaysa iyo araga cawradeeda rag way arkayaan ayay ka baqaysaa iyo ka xishoonaysaa markaas nabiga ku leedahay ii duceeya rasuulullah in maradu iga dhaqaaqin maradaydu bas uu duceeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam meel kasta ku dhici jirtay maradu kama qaad ma jirin baa la yiri ibn abbas radiyallahu anhuma إلهي الراليها كان نقضي عبد الله بن عباس وخلافة عثمان بن عفان وعبد الله سوقاري سوقوا عند بلود دأوين هذه بل ولما وكدم بيانو ملينا يا أيها وحاد على إنه التابعين تكوير هذا عطاء بن أبي الرباح وأرضي جيساها هويني أهل الجنة ما كنت صاح
islaanta madow halkaa duqdaa madow maadarkaysa haa waa ahluljanna say jannada ku mutaystana uu sheegay markaas marka adduunka dusheeda walaalayaal dhibaatada inagu soo gaadha waan u adkaysanaynaa faqriga waan u adkaysanaynaa nicmadda ilaahayna siiyana ilaahay baan ugu mahadinaynaa mu'minku labadaa midun waa inuu ka dhexeeyaa bayna shaakirin wa saabirin hadduu qani yahoo loo nicmeeyeyna waa inuu noqda qof shaakira shaakirku waa maxay waa qofka sida ilaahay raba uu noolaade u socdo weeyaan hadduu faqiir noqdo faqri ilaahay kuu qadaraa ama imtixaan iyo ikhtibaar ilaahay kugu rida oo qof baa kaa xanuunsan adigii baa jirin ilmihii baa wax kaasi noqdeen waa la sabraayo waa la adkaystaa mu'minku ma ashkatoodo haddaad aragto qof muslimo oo shahaadanaya oo balaayo isaga ku dhacday dadka mar walba uga sheekaynaya waa qof ilaahay ka cabanaya baa lihi wuxuu leeyahay nin ilaahay baa dhibtaa igu haya ayaa iga qabto halkay ku dacweeyaan mu'minku ma ashkatoodo shakwada mu'minku ma leh mu'minku sabirkuu leeyahay hadduu qani yahayna waa shaakir hadduu caafimaad la siiyey waa ku shukriyaa caafimaadka haddii arsaaqada loo waasiciyo arsaaqada uu ku shukriyaa haddii nolosha lagu yar cidhiidhiyo lagu adkeeyeyna waa la sabra laanna nolosha adduunka ilaahay isagaa sidaa ugu talagalay dadku inay kala sarreeyaan marka adiga dabaqada ilaahay uu kugu dhex abuuray diinta uu ku dhex qaada bas ilaahay uu ku raaligeli madax buu kaa dhigay madaxnimadaadu waa mas-uuliyad ilaahay ku saaray ajarna waad ka helaysaayo haddaad dadaashado ummadda aad talada lagugu dhiibay walow qoyskaagaba ha noqdo tolkaaba ha noqdaan degmaba ha laguu dhiibay ama tuulaba ha laguu dhiibay haddaad cadaaladda ilaaliso cadaalad samaysid wixii wanaagana aad ula dadaashid dadka haddaad asiibtana 2 ajar baad leedahay haddaad geftana 1 ajar baa lagu qorayaa baa lagu leeyahay غنيجي ولا مد عاقلك ولا مد صلاح ذات بين أجر تلك بينك موسينا يا مركا ولا ليال دينتي أنا معا ما هالدين كوكو بالمسكيت ككلية بل دين ودين دينتي إسلامكو ودين نلش إنه أردن لدونا يوم عرفتنا إنه كم مارين تاجركو تجارة دي سمركو بلابة علماء يتوه تقول هذا قاب كإسلام مدو تجارة ده أردك تعيشين bishii ramadaan baa soo dhawaatay ka soo qaad inta ramadaan una soo galin ninka soonka lagu leeyahay waa inuu culimada u tagu yiraahdo soonkii baa soo dhawaaday bal ahkaamtiisa noo akhri in baa buka ka soo qaad inuu soomo kareynba waxa laga rabaa inuu culimada sii weydiiyo xashkaad u socotaad u xamaan qaadatay cilm alxaal weeyaan cilmigaasi waa inaad culimada weydiisaa inantaadii baad guur galaysood rabtaa inaad dhisto oo da'dii gabdhaha lagu guurinayay gaadhay وانا العلماء قلت ما دو ترادو شريعه الاسلام غورك سيده u dhigtay baliishe adiga rabaninda adaa nin dhalinyaro ama inay guursataan rabtaa islaamnimadu diinteenu islaamku guurka maxay ka qabtaa baliishe qaabka loo guursanayo waa qaabkee awlaada sida loo tarbiyadeynaya war imaamka masaajidka ku tukanayso salaada kaliya kaga daya lagu male imaamkaagu Muhammad buha alayhi salatu wasalaam nabi Muhammad marka uu kuleeyahay sallu kama ra'aytumuni usalli saadi aragteen aniga uu tukada markuu nabigu ku leeyahay waxay ka dhigantahay waa nolosha oo dhan aniga kaga dayday buu nabigu nolosha oo dhan marka nabigeena ha ku dayano oo ubadkeena diinta ha barno inaguna diinta ha ka shaqeyno diintu shaqo rabtaa maanta shaqo adduunyada ma laga shaqeeyaa mise waa iska timaada yaa sheekh ya iska timaada miya soo loo kalaha laga shaqeeyaa shaqada adduunyada ay rabto shaqo ka badan bay diintu rabtaa ay ogaada waliba diinta haddaan xooggeena iyo caqligeena iyo dhaqaalaheena iskugu geyno diin ka shaqeyno noloshan adduunka inoo noqonaysaa janno waa meesha soomaalidu ay tiraahdo waxa umusha udana baa ilmaha udana islaantu markay dhasho odagu ilmaha cunto uma keeno laakiin umusha ayuu nafaqeeyaa oodkac buu u soo dhigi subag buu u keeni malab buu u keeni timir buu u keeni caano u keeni lacag yar buu siini iyadu waa wuxuu leeyahay hadday iyadu nafaqo leedahay ilmuhuna hooyadii buu nafaqada ka qaadanayaa waxa umusha udanaba ilmahana udana waxa diinta udana ayaa nolosheena adduunyadana udana ogaada hadday diintu inaga dayacanto nolosheedii baa dayacantay ogaada marka caamadeena iyo culumadeena iyo dhallinyaradeenna iyo odayadeena iyo ganacsatadeenna iyo madaxdeennaba
diinta xil bay naga saaran inaan ka wada shaqayno oo waqtigeena ku bixino. Allah inagu anfaco. Hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayidina Muhammad.